daawade ka waran haddii lagu sheego inaad kaligaa u booddo meel ay ku sugan yihiin kumanaan cadow ah albaabna xiran yahay cidna kuuma damaanad qaadayso nolol ma ogolaan lahayd maanta waxaan idin hayaa qisada nin caata ah laakiin qalbigiisu ka weynaa ciidamo dhan ninkaas waa Albaraa bin Maalik qaybta koowaad beerta geerida dagaalkii maamulka muslimiintu waxay hortaagnaayeen beer loo bixiyay beerta geerida darbiyo dhaadheer albaab adag gudahana kumanaan cadow ah cidna ma geli karto markaas ayuu istaagay nin aan jir ahaan weynayn laakiin iimaan ahaan buuxa wuxuu yiri dul saara gaashaan kor ii qaada iguna tuura gudaha beerta ama waan shahiidaya ama albaabka ayaan idin furayaa bal qiyaas nin kaligiis ah oo lagu tuurayo kumanaan cadow ah waa la qaaday warmaha waa lagu furqaaday gudaha beertii ayaa lagu tuuray wuxuu ku dhacay sida onkod cirka ka soo degay wuxuu laayay 10 nin oo cadow ah mid iyo dhaawac in ka badan 80 dhaawac ah laakiin albaabkii wuu furay muslimiintii ayaa gudaha u soo galay halkaas waxaa lagu diray muslima al-kadaab dagaalkii waa la guuleystay laakiin Baraa uu noolaa dhaawac aad u culus ayuu qabay bila ayuu jiifay laakiin qalbigiisa halshay ayuu rabay shahaado qaybta labaad tustar riyadii oo rumowday markii la gaaray dagaalkii tustar cadowgu waxay ka soo dejinayeen bir kulul oo ku dhageysa jirka muslimiinta mid ka mid ah birahaas waxay ku dhagtay walaalkiis Anas ibn Malik waa la jiidayay xanuun daran Baraa markuu arkay ma uusan labayn wuxuu qabtay silsiladii birta kulul ahayd gacantiisu way guwatay daawada ilaa ilaf laakiin ma sii deyn ilaa uu walaalkiis ka badbaadiyay ama uu badbaadiyay intaas kadib wuxuu Ilaahay ka bariyay shahaado kadibna wuxuu galay dagaalka si geesi aan ka baqayn dhimasho wuxuu ku shiiday goobta dagaalka faraxsan rajeynaya la kulanka rabbigiis qaybta saddexaad casharka Albaraa bin Maalik wuxuuna barayaa in muuqaalka qofka aan lagu qiimeyn in iimaanku ka xoog badan yahay jirka in qalbi Alle ku xiran uusan ka baqin kumanaan cadow ah haddaba adiga qalbigaaga weydii ma leenahay go'aan la mid ah kii Baraa ma uu istaagi karnaa xaqa sida uu istaagay Allah u naxariisto Albaraa bin Maalik radiyallahu anhu aamiin haddii aad ila joogtay ilaa dhamaadka ku sali nabigeena suuban Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddii aad jeceshahay qisooyin taariikhigeesinimo iyo dhacdooyin qalbiga taabanaya subscribe saar channelka Abu Walad like saar si sheekadan u gaarto dad kale faalo ku qor geeri sharaf leh ayaa ka fiican nolol dulli ah